الله الرحمن الرحيم غربنا فيديو قرار كينيا وحا كمدا ودي كسودا هدلكا كونفور افريكا او كلامو كلا جديسن لا يرى يوم مدحدا هدلكا جمهورية جيبوتي هذا الميليتري اما دبسي الميليتري الحاج حسن بلول يكون على لنعاهو وحا مات لغا سو غبغليين اما لو قفو حفيد سو غبغليين ايسا سبركي بلادنا سبب نوعيه kala duwanaanta koobnaha afrikaaga loo yaqaano ay ku jireen aqoonta sideedaad ee ciidanka adeega qaranka iyo kuwa kale ayana loo tababarayo dhinaca asluubta jeelasha xagga dalka Suudaan waxa arrimaha dalkaasi Suudaan ay yihiin si aad ah ay dowladaha Faransiiska iyo Ingiriiska iyagu ay uga hadlayaan iyagoo qaramada midoobay shalay dhexmariyay waraaqo iyagu markaasi ku aadan in ciidamo loo diro dhinaca dalkaasi Suudaan gobolkiisa Darfur dhinaca dalka Afghanistan waxa ay kooxaha Taliban kuwa ay gacanta ku hayaan ilaa dhowr iyo 20 qof oo iyagu ah hadba shaqada Kuuriyada Koonfureed waxaana ay iyagu codsanayaan in dadkaasi si dowladooda ay ku xiran tahay in iyaga loo soo daayo dad maxaabiis oo laga hayo oo jeelasha dalkaasi Afghanistan ku jira. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh awsaysan weeyna marayaan ku soo dhawaada wararkii dalka iyo adduunyaha intiisa kala naga soo gaaray caawa warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa waxaa dhambaal hambalyaha ugu diray madaxweynaha dhigiisa ee dalka Masar Maxamed Xusni Mubaarak oo dalkiisa laga xusayo maalinta qarannimo waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda dhambalkiisa uu ku yiri waxaan ku faraxsanahay hore socodka cilaaqaadada Djibouti iyo weliba dalka jamhuuriyaddaasi dalka Carbeed ee Masar taasoo weliba ay ku dhahan tahay rabitaan ku aadan sii xoojinta iyo sii adkaynta wadajirka ee cilaaqaadada labada wadan ee Djibouti iyo jamhuuriyadda Carbeed ee Masar taasoo madaxweynuhu sidoo kale uu dhambalkiisa ku sheegay in labada dhinacba markaas ay go'aantay in sii xoojiyaan siina ballaariyaan cilaaqaadada u dhaxeeya labada wadan cilaaqaadadaas oo noqda kuwa u adeega ummadaha labada wadan ee Djibouti iyo Masar iyo ku nool howlaha guud ee wasaaradda hoyga mudane Abubakar Ducaale oo wakiil u ah wasiirka hoyga iyo magaaleynta ahna wasiirka ku-meelgaarka ee wasaaradda ganacsiga mudane Cilmi Siyaways ayaa waxa uu maanta qaabilay wafdiga ka socda dalka koonfur Afrika kuwaasi oo iyagu socdaal baryahan ku jooga caasimadda Djibouti waxaana wafdigaasi koonfur Afrika horkacaysa agaasimaha hoggaanka wasaaradda ganacsiga Futi Bokolo waxaana ay hawshoodu ay socon doontaa muddo 3 maalmood wakiilka wasiirkaasi iyo wafdiga Afrika koonfur Afrika ka socda ayaa ka sheegaysay qaabka iyo siyaabaha kala duwan ee loo sii horumarin karayo cilaaqaadada labada bulshooyinka ee u dhexeeya Djibouti iyo koonfur Afrika waxaana inta ay joogaan dalka mas'uuliyiintaasi ka socda dalka koonfur Afrika iyagu ay kulamo kala gedisan ay la yeelan doonaan madaxda Djibouti gaar ahaan mas'uuliyiin kala duwan iyagoo geeskana ay madaxda marsada Djibouti iyo weliba dhinaca xagga isboortiga magaalada Durban qaybo u qaabilsan ay markaasi iyagu kulamo kala gedisan ay la yeelan doonaan madaxda qaybta ka hufan cashuuraadka ee zone franchka loo yaqaano iyagoo hadda ku sii jira kulamada kala gedisan ay la yeelanayaan madaxda dalka Djibouti ayaa xubnaha wafdigaasi waxaa maanta ay guriga ganacsiga Djibouti ku kulmeen niman maalqabeena oo Djibouti waxaana uu yahay shirkaasi isagoo mid uu hogaaminayay gudoomiyaha guriga ganacsiga Djibouti mudane Saciid Omar Muuse waxaana ujeedada ugu horeysa ee laga shirkaas ay ahayd in wax lagu ogaado arrimaha halka ay ka marayaan tan markii qaybaha waxa la gaarka loo leeyahay ayuu markaas la dhaqaajiyay xagga ganacsiga iyada si aad looga dardargeliyay taasi oo shirkuna uu ahaa mid labada dhinac iyagu ay si wadajir uga hadleen fursadaha kala duwan ee ka jira gaar ahaan fursadaha ganacsiga ee ka kala jira labada wadan Djibouti iyo koonfur Afrika taasi oo la doonayo in la sii ballaariyo cilaaqaadadaasi oo iyagu noqda kuwa waxyaha gaarka loo leeyahay Djibouti iyo kuwa dalkaasi koonfur Afrika iyagu si buuxda ay iskaga kaashadaan waxaa haddaba wafdigaasi ka socda dalka koonfur Afrika isagoo yahay mid shir u horeeya shalay la yeeshay mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga shirkaasi oo ka dhacay rugta wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ayaa arrimo kala duwan looga hadlay gaar ahaan dhinacyada kala duwan ee Djibouti markaasi ay dalkaasi koonfur Afrika waxyaabaha markaas ay soo hor mari karayso samarahataasna uga bandhigi karayso iyo Djibouti sidoo kale ina ay markaasi Djibouti dhinacyada kala duwan ee ay hodanka ay ka tahay iyo sidoo kale dalkaasi koonfur Afrika ayana uga waranto
xerada military ee xajib kuuleed ee dhinaca magaalada Holhol waxa laga soo gabagabeeyay tababar ay qaadanayeen qaybta 8aad ee adeega qaranka dhalinyarada ku jira iyo weliba kuwa kale oo loo tababarayo dhinaca asluubta xagga jeelasha waxaana ay munaasabadu ahayd mid ka dhacday iyadoo saaka dhinaca xerada ama dugsiga military ee Holhol waxaa munaasabadaasi isagu gudoominayay taliyaha sare ciidamada qalabka sida ku-meelgaarka General Zakariya Sheekh Ibrahim waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay taliyaha dugsigaasi Komodomo Daahiro waxaana halkaasi iyagu joogay in ka badan 200 oo dhalinyaro oo iyagu markaasi qaybta 8aad ee SNA-ga iyo qaybaha kale ee xagga asluubta jeelasha loo tababarayo taasi oo General Zakariya Sheekh Ibrahim taliyaha sare ciidamada ku-meelgaarka ciidamada qalabka sida ku-meelgaarku oo hortaba socod ku sugan maray cutubada kala duwan ee halkaasi joogay kaasi isagu ka akhriyay khudbad ballaaran oo ka waramayo waxqabadka SNA-ga iyo kuwa kale ee ciidanka asluubta dhalinyarta xafiiska wiil iyo gabadhba waa dhismo cusub oo ku soo biiray dalka oo dawladdu ay maanta u garatay in la abuuray waaxdatan xafiisyada u gaar ah oo ciidan ah oo hubka qaadata oo dadkana ridi taqaan asluub gaara iyo aadaab gaarana inay yeeshaan hawsha ay qaban doonaan ay tahay hawl adag waa hawl cusub kow waa hawl ay ilaalin doonaan xafiisyada guud ahaantooda waxaan usoo jeestay qolada qaybta tan oo service national adabteega lagu magacaabay oo qaybtii 8aad baritoole dalku sugayo waa idinka wey kuwa idinka sii dambeeyana madaxda dalku baritoole waa idinka wey dadka madaxa guud qabsadooda baritoole mustaqbalka gaarsiina waa idinka maanta aniga maaha laakiin waa inaad raad ka tagtaa baritoole ka kaa dambeeye ilmahaaga ilmihiisa oo jooga ay eegtaan niba meel uu ka geli doonaa wadanka kuwa dawladda meel ka galaya wasiir noqoya professional noqoya taliya sare ciidamada noqoya taliya hoose noqoya ciidan meeshuu doonaa ka galo dadka wadanku uu sugaya waa idinka nabadgelyada sharafta quruxda waxa ay ku xidhan tahay waxa weeyaan idinka weeye toddobaadadii waxaad galaysaan waxbarashadii farsamo gacmeedka ahayd baa beritoole tagaysaan oo aad ku shaqaysan doontaan beritoole waxaad ugu shaqayni naftaada ayaad kow ugu shaqayni waxaad ugu shaqayni dalkaagaad ugu shaqayni waxaad ugu shaqayni dadkii kuu dhawaabaad ugu shaqayni kuwaad beritoole adigu dheri doontaad ugu shaqayni waxa weeye waxbarashadaasi mid meel u gaara inaad u barato ku xidhan shuruud iyo kondishoon ku xidhan maaha waa mustaqbalkaagii oo laydin siiyey nasiibkan 2 sano ka kooban oo aad wax ku baranaysiin intii kool soo martay intaad soo mari badhamaantiin midna ogaada maanta waddankeenu wuxuu marayaa maanta meel fiican oon cidina filaybu maanta maraya waxbaa dee jiro nicmad baa jirta nicmadaas waxay u baahan tahay inaan darada ka dhamaana nin wala meeshu kaga jiro waxa weeye beritoole markaa dhamaata u sharo meeshii aad kaga haddii aad shaqa hesho maaha tu qasab ah maaha tu cido u doonanaysa maaha tu haddii dalku kuu baado meeshii lagaga baaday ciidanka hadduu wax ka qaadan kara lagaaga qaado haddii booliska laga qaadi kara lagaaga qaado jandarmka hadduu wax ka qaadan kara ka qaado haddii qoladan imanka benitaasyeegu ee benitaasyeerku ay wax ka qaadan karaan ka qaataan wasaaradaha kala duwan wax ka qaadan karaan malqadanku ka qaadan karaan dawlad dadka ajnabiga ee nala joogaan ay ka qaadan karaan waxyaabihii aad barateen waa nin iyo nasiibkii iyo itaalka markaa joogeen aad la kulanta ayay ku xiran tahay General Zakariya Sheekh Ibrahim taliyaha sare ciidamada qalabka sida ku meel gaarka oo khudbadaasi ka akhriyay saaka gabagabadii
munaasabadaasi lagu soo afjarayay tababarkii isagu ilaa 5 bilood ku dhow soconayay dhalinyaro ilaa 200 tiro ay sare u dhaafsan tahay oo ka qayb qaadanaya hawlaha ayka qaran ee sina loo yaqaano iyo kuwa kale iyaguna kuwa loo tababarayo dhinaca asluubta jeelasha inay markaas ay sugan hadda munaasabadaasi saaka waxaa ka qayb qaadanayay sida agaasimaha dhinaca asluubta jeelasha Saalax Jaamac Aamir iyo waliba komandan Tahir Maxamed oo isagu komandaha dugsigaasi militariga ee Holhol iyo waliba taliye-ku-xigeenka dhinaca gaashaandhigga General Xasan Cali Kaamil oo isagu halkaasi joogay iyo waliba bulshada ku nool magaaladaasi Holhol oo iyagu rag iyo culimada markaasi isugu jiray hadda munaasabadaasi waxay ahayd taqriibtaasi sideedaad ee sanaagu ay soo gabagabeeyeen tababarka isla markaasna ay ku weynayeen kuwa iyagu loo tababarayo dhinaca asluubta jeelasha kuwaas oo saakaalkaasi lagu guddoonsiiyey shahaadooyinka ka turjumaya tababarkaasi ay soo gabagabeeyeen iyagoo hadba si u kala wanaagsanaa u kala horeeyeen shahaadooyinkaasi ay ku tegsteen Mohamed Salalese Mohamed première deuxième compagnie moyenne 16.82 général waxaa halkaasi munaasabadaasi lagu bixinayay shahaadooyinka isagu sidoo kale gudoominayay taliyaha sare ciidamada qalabka sida ku-meelgaarka Jeneraal Zakariya Sheekh Ibraahim iyagoo halkaasi uu ku guddoonsiiyey wiilasha iyo gabdhaha iyagu ka tirsan SNA iyo kuwa asluubta jeelasha loo tababarayo iyagu halkaasi kaalmo u horeeya soo galay iyadoo saraakiisha kale ee u sarreeya ciidamada qalabka sidana ay sidoo kale munaasabadaasi ay joogeen iyo weliba agaasimaha dhinaca asluubta jeelasha Saalax Jaamac Aamir waxaana munaasabadaasi iyadoo ahayd sidoo kale khudbad uu ka akhriyay agaasimaha dhinaca asluubta jeelasha Saalax Jaamac Aamir khudbadaasi oo ku sheegay in ay tani maanta u horeysa ee munaasabadani ayadu tahay mid muhiimad ballaaran leh iyada oo taasi soo gabagabaysay qaybtii u horeysay dhinaca tababarka militari ee dhalinyarada xagga jeelasha loo tababarayo inay sugaan nabadgelyadooda iyo weliba asluubta dadka iyagu markaasi jeelasha ku jira waxaana taas ay tahay mid maanta iyadu ku horeysa dalkeena ayaa yiri waxaana aad ogaataan in tababarkan uu yahay mid la siiyey kooxahaasi dhinaca asluubta jeelasha qaabilsanaanaya muddo 3 bilood ka badan iyadoo tababaradaasi ay yihiin kuwo buuxa oo waxba ay ka dhimayeen marka loo eego shaqooyinka aad fulinaysaan waxaana shaqadiidu ay noqon doontaa in aad amniga sugtaan iyo weliba asluubta iyo nabadgelyada jeelasha kala duwan balse inay weliba sidoo kale aad ka qayb qaadataan in aad dadkaasi iyagu sidii ay dhaqan celin ay u leedahay sidoo kale aad uga shaqaysaan waxaana taas ay noqon doontaa mid shaqo u baahan waxyaabo fara badan xagga bini'aadanimada xirfado xagga bini'aadanimada xagga dhismaha jirka xagga deganaanshaha jirka iyo maskaxda qofkaba iyo weliba dhinaca la sheekaysiga dadka oo guud ahaanba kuwaas ay yihiin kuwa qayb weyn ka kala duwan waxaan magacinaya yowri wasaaradda dhinaca gaashaandhigga gaar ahaan ciidamada qalabka sida iyagu hawshaasi soo qabtay waxaa halkaasi lagu soo gabagabeeyey ciyaarahaasi hiddaha wadana lagu soo jeeda iyo sawirkaasi ballaaran ee guud ahaanba ay ka dhex muuqdaan dhalinyaradii iyagu soo dhammaaday tababarkaasi isagoo dhinacyada kala duwan ka soo jeeda fitaaga loo yaqaano oo ay markana uga gudbayaan xirfadaha kala duwan ee ay dhalinyartaasi ay baranayaan waa intay sanacay kuwa kalena ee shaqooyinkii kale iyaga loo tababaray ay markaasi ku toosi doonaan wararka la xidhiidha dhinaca iskaashiga militariga iyo bulshada rayidka waxaa ciidamada Faransiiska ee ku sugan Djibouti iyagu ay dib u habeeyeen dib u dhiseen dugsiga hoose ee ku yaala dhinaca magaalada Tadjoura dugsiga hoose oo kamid ah kuwaasi ku yaala magaalada Tadjoura ayaa halkaasi ciidamada Faransiiska ee degan Djibouti iyagu ay dib gacanta u mariyeen oo dib uga shaqeeyeen waxaana munaasabadii lagu furayay dugsigaasi ee dib iridaha lagu furayay iyadoo ahayd mid uu ka qayb qaatay Colonel Jean-Luc Renato iyo weliba gudoomiyaha gobolkaasi Tadjoura iyo mas-uuliyiinta kala duwan gudoomiyaha gobolkaasi Tadjoura Omar Jaamac Caynaan iyo weliba gudoomiyaha golaha heerka degmo ee dhinaca maamulka iyo weliba mas-uuliyiin kala duwan oo iyagu halkaasi ka qayb qaatay sida wakiilka wasiirka dhinaca waxbarashada Mawlana Ismaaciil Jilaal iyo weliba shakhsiyaad kala duwan oo militari iyo ra'iis ugu jira oo ka soo jeeda gobolkaasi Tadjoura
waxaana ciidamada faransiiska degan Djibouti iyagu ay dib u hagaajiyeen oo gebiyahaanba ay u qurxiyeen dugsiga isagoo ku yaala magaaladaasi Tajoura oo ay wax ka bartaan dhalinyaro ilaa 27 iyo markaasi ay tirada gaarayso iyaga oo ilaa 12 miisna halkaasi u dhigay iyo gebiyahaanba wixii ay u baahnayeen ay ardaydaasi ay waxbarashadooda ay ku hanan lahaayeen waxaana hawlahaas iyaga hayeen kuwa hoorteen ama fidiyeen ciidanka Tarezen ee dibadda loo yaqaano waxaana munaasabadii gabadhada halkaasi xilliga isagoo ka jeediyay Colonel Jean-Luc Renaton oo isagoo sheegay in uu aad u xiiso faraxsan yahay sida bixin ay lagu soo dhaweeyay magaaladaasi Tajoura waxaana uu tilmaamay inuu ka qayb qaato munaasabadaasi iyada oo ay General Michel Aoun taliyaha sare ciidamada faransiiska ee jooga Djibouti isagoo munaasabadaasi aan uga faa'iideynayo in halkan laga soo jeediyo hogaamin iyo weliba fariin iyo markaasi ku aadan howlaha kala duwan ee halkan laga fuliyay iyo sida rayidka iyo militariga gaar ahaan dadka ku dhaqan Tajoura iyo ciidanka faransiisku halkan ay soo kaashadeen si ay goobtan quruxdeedii iyo bilceedii dib ay ugu soo ceshaan hawshaasi militariga rayidka ay soo kaashanaya waxay tahay mid fudud ciidamada Tarezen ee qaybaha leeshaha tirajeerka loo yaqaano waxaana halkaasi sidoo kale aan tilmaamaya ayaa yiri in aan halkan uga magaceliyo gudoomiyaha gobolka Tajoura dadka iyagu wakiilada ee madaxweynaha halka laga soo doortay iyo weliba mas'uuliyiinta kale ee wana qaabilsan dhinaca wasaaradda waxbarashada iyaga oo sidoo kale ay mas'uuliyad xaamood oo biyaha ay deereeyeen goob aan ka dheereen casay iyadoo hawlo kala duwan ay ka qaban doono caddeyn iyo weliba dhinaca Tajoura waxaa sidoo kale ka halkaasi mas'uulka dhinaca ka soo jeeda xagga maamulka gobolka Tajoura oo sheegay inuu ugu gudo hawshan isla ahaantaan mahad ballaaran u celiyay ciidamada faransiiska ee iyagu hawshaasi waxtar kale iyagu fuliyay ugu dambeyn wararka xagga dalka ku saabsan haddii aynu ku soo gabagabayno qodobkan oo isagoo la xiriira deeq ka kooban gogosha guryaha la dhigto oo loogu deeqay soddonkii lamaane ee iyaga 30 jirkii qaranimada dalkeena awgeed iyaga la isku dhisay taasi oo munaasabadaasna ay tahay mid saaka ka dhacday dhinaca rugta ururka qaran ee haweenka Djibouti UNFT siyadu ay tahay muddo xigtay kadib markii la soo dhisay soddonka lamaane ee uu hormuudka ka ahaa Sayid Aluta ayaa waxaa taasay tahay mid loogu talagalay in la siiyo dadkaasi hadda kadib qoyska noqon doona oo guryahooda ku qorshayaan loogu talagalay waxaana halkaasi ka hadashay amaysa ogolaha guud ee shaqada Djibouti iyo Djibouti ee ku nool magaalada Jidda waxaana hadiyada loo soo jeedinayaa soddonkii lamaane isku guursaday 30 jirka calankeena maanta waxaa dumarka matalaya Marwa Caasha Saalax oo ah marwada qusulkeena Jidda jooga waxaan maanta anoo afka ku hadlaya soddonkii lamaane iyo magaca ururka haweenka iyo weliba magaca marwada koowaad gudoomiyaha ururka haweenka Marwa Khadra Maxamuud Xayd waxaan maanta u soo jeedinayaa mahadnaq bogaadin iyo hambalyo dumarka talaabada aadka u qurux badan ee khayr kale ku dhaqaaqay wararka caalamka haddii ay loo gudubno dalalka faransiiska iyo ingiriiska ayaa waxaa markan iyagu ay ku dadaalayaan sidii gobolka Darfur gaar ahaan dhibaatooyinka iyagu saameeyay markaasi wax looga tiri lahaa iyadoo geeskana dalka Chad arrimaha ka socda gobolkaasi Darfur iyaduna ay saameyn ku leeyihiin haddaba dalalka ingiriiska iyo faransiiska ayaa waxaa maanta ay maalintii shalay qaramada midoobay ay hordhigeen qoraallo iyo weliba qaraaro kala duwan oo ku saabsan gobolkaasi ama gobolka Darfur ee dalkaasi Suudaan لم تحدد الحكومة السودانية موقف فريق لندن waxa iyagu ay hordhigeen qaramada midoobay hawlo iyagu ku aadan in dalkaasi Suudaan bal wax laga tiro oo arrimaha gobolkaasi Darfur ka jira isaga markaasi mas'uuliyadda uu ku leeyahay loo sheego waxaana qaraarkan cusub isagu yahay mid tilmaamaya in ciidamo iyagu ka socda qaramada midoobay iyo Afrika la geeyo dhinaca gobolka Darfur ciidankaasi oo tiradoodu ay tahay ilaa 20,000 oo nin waxaana ciidamadaas iyagu ay noqonayaan kuwo lagu filayo inay soo gabagabeeyaan dagaalada u dhaxaynaya kooxaha iyagu carabta ee janjawiinta iyo kuwa dowladda iyagu markaasi taageersan waxaana ay howlahaasi iyagu ay yihiin kuwo ay dowladda faransiiska iyo weliba ingiriisku ay doonayaan in ay ku soo afjaraan dhimashada maalin walba halkaasi ka dhacaysa ilaa 200,000 oo qof halkaasi la sheegay inay ku dhinteen in ka badan 2 malyan oo qofna iyana ay ka barakaceen goobaha deganaa sanadkii 2003 gaar ahaan gobolka Darfur balse waxaa dowladda Suudaan iyadu ay sheegaysaa
sheegaysa in ay arrimahaasi oo dhan ugu waayeen kuwo dowladda Suudaan iyadu sideeda iyadu ay ugu tallaabsanayso xal u helidooda waxaana mashruucan cusub isagu yahay mid saameyn ku yeelanaya in dalkaasi Suudaan isaga laga qaato qaraaro kala duwan waxaana dowladda Suudaan iyadu ay markan iyadu sheegaysaa in ay arrimahaasi iyaga ayna khusaynin balse cadaadis iyo weliba ganaax ayaa uga iman karaya qaraaradaasi kala duwan dalkaasi Suudaan markan ay dowladda Faransiiska iyo Ingiriiska markaas ay ku wadaan danjiraha Suudaan isagu u jooga qaramada midoobay Cabdulmaxmuud Cabdulxaliim Maxamed ayaa waxa uu sheegay in arrimahaasi iyagu ay yihiin kuwo Suudaan weli iyadu ayna qaraaro ka soo saarin balse taasi ay tahay foolxumo isla marhaataana wax beena oo dowladahaasi Faransiiska iyo Ingiriisku ay halkaasi Suudaan ay doonayaan in ay markaasi ka fuliyaan waxaana dowladda Suudaan iyadu ay taageersan tahay in la geeyo ciidamo ka socda qaramada midoobay iyo midowga Afrika oo isku Suudaan balse xukuumadeedu iyadu ay diidan tahay in arrimahaasi iyagu ay noqdaan kuwo guud ahaanba lagala wareego dowladda Suudaan oo iyada aanan markaasi waxba lagala tashanin gees kale gobolkaasi Darfur dagaalada ka soconaya waxay saameyn ku leeyihiin dalkaasi Chad iyadoo madaxweynaha dalka Chad Idriss Déby Itno uu dhawaanta isagu u tagay dhinaca dalka Faransiiska gaar ahaan madaxweynaha Faransiiska Nicolas Sarkozy oo ay ka wada sheekaysteen arrimo iyagu la xiriira asigii markaasi labada wadan ee Faransiiska iyo Ingiriisku ay arrimaha dalkaasi Suudaan iyo weliba dhinaca Chad saameynta ku leedahay wax looga qaban lahaa المجتمع الدولي حضورا لتحقيق dalka Afghanistan waxaa kooxaha Taliban ku baryahan dambe iyagu ay la kala bixeen in ay tallaabooyin kala duwan oo qafaalasha ay ku dhaqaaqaan waxaana markan iyagu ay gacanta ku hayaan ilaa 23 qof oo iyagu u dhashay dalka Kuuriyada Koonfureed dadkaasi oo ay madax fur ay u haystaan iyagoo codsanaya in la soo daayo dad iyana markaasi ka xiran oo jeelasha dalkaasi Afghanistan kaga jira waxaana ay sheegeen habatirada ay loo soo daayeen inayna sii dayn doonaan dadka ay gacanta ku hayaan 23 qof oo iyagu kuwa u dhashay dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa lagu qafaashay gobolka Ghazni lagu magacaabo oo ilaa 140 kilomitir koonfurta kaga beegan caasimada Kaabul waxaana hadda muuqata in dadkaasi iyagu Kuuriyada Koonfureed u dhashay ay gacanta ugu jiraan ciidamada Taliban ama kooxaha Taliban oo iyagu sheegaya in ay markaasi doonayaan in loo soo daayo dad jeelasha kaga jira waxa ay sii daayeen 8 qof oo iyagu markaasi kuwa u shaqeynayay wakaaladda dhinaca warfaafinta ee Yonhap ee dalkaasi Kuuriyada Koonfureed kuwaasi oo iyana la sheegay in lagu bedeshay kuwo kale oo maxaabiis oo iyana kaga jiray Talibanka jeelasha dalkaasi Afghanistan waxaana madaxweynaha dalka Afghanistan Hamid Karzai isagu sheegay in ayna jiraynin wax ciidamo ama dad maxaabiis oo la kala haysto oo aan la kala bedelaynin balse waxa arrinkaasi iyadu ku adag kooxahaasi Talibanka oo iyagu sheegaya in aan yaraatay cidna ayna sii dayn doonin waxaa kale oo Talibanku ay sheegeen in ay gacanta ku hayaan nin kale oo isaguna injineer oo u dhashay dalka Jarmalka balse xal caafimaadkiisu aad u daran yahay waxaana kooxahaasi Talibanku ay sheegeen in ay muddo ama waqti ayna u qaban doonin dadkaasi maxaabiista soo dayntooda ilaa intooda hadal ay u socdaan labada dhinac waxaana wada hadal ay yihiin kuwo u soconaya Talibanka iyo dad iyagu markaasi wakiilka dowladda dalkaasi Afghanistan iyo deeskaana dad xitaa Afghanistan u dhashay ay markaasi gacanta ku hayaan kooxahaasi Taliban waxaana habab iyaguna kuwo mutadawiciin oo iyaguna ka soo jeeda kaniisadda evangelista loo yaqaano ee Samuel iyana la qafaashay maalintii Khamiistii kuwaas oo lagu qafaashay isla gobolkaasi Ghazni kuwaas oo iyagu baabuur gaar loo leeyahay ku socdaalayay meel ka agdhow ama dariiqa soo isku xiran Kaabul iyo Kandahar koonfurta dalkaasi Afghanistan iyadoo oo wadadaasi ay tahay ta ugu khatar badan wadooyinka ka jira dalkaasi Afghanistan الدول الإسلام وهي دعوة رياضة سوى معه وكسر قبل نجر رياضة كان يدوينا نجسوا جاري هذا عند مساعد نوع عادي هاي أنت اللي تبي سوي الدون وبعد كذا ولا سنة تبي لك في سنوات كذا إنترنت كذا وحان بجهاتي بعدها هاي عاوز سنة سنة أنا بقول إنه إنه يكون وكان صوت يا رسول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته